ما إنكرينو دولة إثيوبيا دتك الصوماليات يدتك كوفر قلبيد يكوا بكل waxay u qabatay marna ma inkireen cid inkirtayna ma aqbalayno haddaad aragtid nin Soomaaliya oo ordayo wadaba shishay u galaya nin kale oo Soomaaliya ku qasbayo ka cararaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay xildhibaanadaasi waa inay idin calaamadeysnaadaan oo ogaataan inay dalkan iyo dadkan aysan dan ka lahayn waxay ka farciyeen shacabka ad sabab ku nool waxay ka ilmeysiyeen shacabkii Soomaaliyeed Itoobiya waxay ku timid sharcigeedana waa dhamaad oo amis way bixisay yaan la isku qaldin dadka masaakiinta gobolada baadiyada joogan in $25 halkii qof loo turo calanka Itoobiya qabsadee banaanbaxa waa ayaan dadkii way baahan calanka way qabsanayaan xajoojiyaan dadka la khaldaayo yaanan lagu maran habaabinin yaanan been lagu sheegin aqlabiyada deegaanka shacbiyadana waa inaad kala shaqeysaa horumarka deegaankaas madaxweynuhu burbur iyo qalalaas ha u horseedin deegaanada koonfurta Soomaaliya waa ayaan darro weyn waa nasiib darro taariikhdan waxay ka galeen baal madow ayay ka galeen dagaalka iyo siyaasadda biyaha Niilka ee ka dhaxeeya dawladda Masar iyo Itoobiya inaan loo soo rarin gudaha dalka Soomaaliya Itoobiya ognahay baddeena inay meel walba ka soo docodocoynayso in maanta ay dhahaan Itoobiya joogisteeda Itoobiya taageerina iyo maxay ahayd siyaasadeedan taabacsanahay oo wax nasiib darro ah internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah